marwo fartuun xaaji deer oo ah marwada madaxweynihii hore maxamed cigaal oo madaxweynaha iminka jooga Somaliland qoyskiisu ay dhul ku qabsadeen ayaa gurigeedii warbaahinta ugu warantay waxayna tiri 2003 baa ugu horeysan dhulka kala hadlay Muuse inta aan ku jiro ama ha weynaato ama ha yaraato ama ha igu badnaato madaxweyne dhulka u taakeeya lama arag Somaliland iyo caalamka toona gabadhii madaxweynaha dhulka la siiyay wuu badan war dhinacaan in dagaaba la siiyay dhinacaan in taariikhda odayga dhigo iibsan maayo anigu rarina maayo dhulka hargeysa guriyihii shacabkana orod waa talaboobay cid aad ka soo qaadi karto intaad aniga eegayso dadaan gelin oo aan Somaliland abaal ku lahayn ayaa abaalaan u qortay baan kulay dhulkii shacabka laakiin waa nasiib darro ayna adeerka fiicna kula mar fool xumo kugu caaya aniga 150 kaygan mitir waxa ku tusay hargeysi way ka sheekayn waxaan u dirayaa cod dheer iyo mid gaabanba aan ugu dirayaa intii Soomaali ku hadasha waxaan cod dheer iyo mid gaabanba baaq ugu dirayaa inta Somaliland joogta ee magacayga iyo muuqaygaba taqaan ee Maxamed Ibrahim abaalka oo ku lahaa ee ku degtay ee ku dhisatay ee ku dhashay ee ku badbaaday ee ku nabad gashay inay halka isku wada yimaadaan oo haddaanu gardaranahayna ay geedkan nagu xidhaan haddii nalagu durdurinayana yaa shalay dhalatay wal shub jir adar xukunka waa la soo wada maray kamaanaan faa'iideysan anagu dhulna kamaanaan qaadan aqalada Ingiriiskana waa naga ku jirna kaynu laga saar kari laayna waa ka hangashte aysiyaad bara dhisay dundunsana la arkay fool xumadiisa way naga muuqan lahayd waxaan qaadan fooqayna maanu dhisan hantina maanu boodin adeer inta waxa idin tusay yaa Somaliland ba ka sheekay dib baa looga sheekayn baan ku halkaana mari mayso haddaad u baahateen oo la xajal idin ka gashay oo ii qoori weydeen u soo diro wasiirkaaga hawlaha guud u soo diro iyo inankaad abtiga u taacilisa tira heen walba soo cabir dhulkeeda iyo GPRC igu soo sawir GPS-ka igu soo sawir dhulka kaltuun dusha iga soo sawira furayaasha u soo diro idinka degdegayo nafta doojinayo diihaa la sahaye anigu Hargeysa magac baan ku leeyahay Xaaji Daar Cigaalo tujaarta Hargeysa hana way dhalay ma gaajoonaya anigu intaas aan idin leeyahay warkaasoo ilaa 2003 Muuse obstacle-ka weyn ee haystay adigoo aha weli kama hadal qofka yiraahdo Muuse dhulku uga haysta ma yaabana waxba igu haystay been baa la sheegay adiga ay haysta oo adiga ay haysta ee waxaad ka heshaa badleed inankiinana waxa soo ilmaadeeradan waan ku iri aan kala hayaa aan isleey waleystili aan isleeyahay saxaabanina hadii ceebtu idinka aan waxba idinka qaadayn dadka kalena waxba ka qaadamayso maalinta aan ku yeeray ee aad igu timi aqalkii odayga qorbaawi ee ka shisheeya maxaan dhahdaa summer time yaa aan ku wareer halkaas la isiyo rarka igaga dhacay halkaana waxa la yiri reerkiina degan de bal Muuse Maxamed dhimay adaa maanta noole tali waxaad igu jawaabtay ana rakaararaye xoogaa yaro bajada iyo dhul banaani doon waadii soo socota sab attach waad igu wada Maxamed Xaashiba horteeda isku disheen markuu yiraahdo looga raro horteeda kula dagaalantay aad lama rari karo marka waxa weeye dalka waa la maamulaa dadkana waa loo dhaxeeyaa yaa taas aadna hadhow ku hor